wiilka mayna hawa goorta ku marjisan wiifo koreeye goorta hadagan gali geedi jar iyo waxyaabaha san raadiyay marka ilaahay amarkii waqtiga aan shaqada aan helay aan bilaaway telefoon ay soo dirtay wal wiilkii waa dhantay Maxamed aha soo orod bay tiri waan ku cilay ma dhantay anaga waa hubsaan lahayn inay shaqan ku jiray war anaga waa dhantay hadii wax duugaysa soo orod hadii kale anaga waa dhantay tiri waan soo baxay waxaan idin kala soo hadlayaa xaafadda waqaf degmada Daynil ee gobolka Banaadir halkan saak waxa ka dhacda argagax leh wiil yar oo sida sheegay 4 sano jir ah ayaa ku geeriyooday aqalkan iga dambeeya wiifo uu ku dhilay qoorta u galay saas ayna sabab u noqotay inuu wiilkan geeriyoodo wiilkii ay geeriday waxa lagu magacaab jiray Maxamed Aadan Ibraahim wuxuuna ahaa wiilka afraad ee iska dhaleen hooyo Faadimo Jaamac iyo Macallin Aadan Ibraahim waxa dhacdada nagu warbixiyay hooyo Faadimo oo markii wiilkan yar uu geeriyooday halkan ku sugnayd soo kale xana la hadlay aabaha wiilkan oo lagu magacaabo Macallin Jaamac Macallin Aadan Jaamac waa kuwana qaar kamid ah hooyo Faadimo iyo qaar kale ee kamid ah oo la hadlay wiilka mayna hawa goorta ku marjisan هذا قارتك بمرجسين هذا جماعي بكنا كذا يرابطون فايلا يرتاع في ما بقول بمرجسين مركدان بنا فضل يروي ميكانو جرنا وسوم مرجسين نفتق بطلين كوي هو بنا كوي هذا كي كبي بن قلبي عشان وسوم نفتق بطلين نفهم كجرنا كبي لكن أنا لما شدي سي ولا شيء مكسانة دتي أنا وير دي أنا قن لما ذي نفهم كجرته أسكت عفوا لي أري ونك ساسة كلام ذي محمد آدم إبراهيم هارج وحواي أو وحكيرين جري سنجرك أو سندرود هواين كتاسة كفرتا سوى حدينه سندرود كفرت جري هذا نكاسة قارتين قالي كلام ذي ساسة ورسي ويفو وراوي إنا قرأ أوسان أورت وقشتا أو جامع سان وقشتا راوي جامع ملقارين أورت لي وقالي ساسة كلتي واو إني به markii lu weydi waxa la arkay asoo dhimasan oo hargi ku raara abti saaka ilaahay nabada waaga noogu bariisiyay shaaya gabadhan noo karisay waan shaaya cabnay marka aan shaqo lahaay oo shaqo iska aad ilmaha wax u raadiyay geedi jar iyo waxyaabaha san raadiyay marka ilaahay amarkii waqtiga aan shaqada aan helay aan bilaaway telefoon ay soo dirtay wal wiilkii waa dhantay Maxamed aha soo orod bay tiri marka waa u qaadan waa inay dhintay waa u qaadan waa markii dambe ilaa amarkiis inay degdeg ku imaanaya aska qiijay waan soo noqday waan ku cilay ma dhintay anaga waa hubsaan lahayn inay shaqan ku jiray war anaga waa dhintay hadii wax duugaysa soo orod hadii kale anaga waa dhintay tiri waan soo baxay markii ilaa amarkii anaga xaragaas kaligiisa guriga galay ayadaan wareystay ilmihii kalena dugsiga aadan kuwan hadda agtayda joogan oo kale marka ma joogin dugsiga ay ku maqanaayeen asaga waa ka weynayn hadii ayaga wax u galiy hadii la dhehi lahaa ma joogin marka kaligiisa meesha galay marka saasa wax u dhaceen maamadaas aragtay ayada waysay raadisay wax kale oo dhib ma jiraan marka ayaa aabihiis way Maxamed Macallin Aadan balaha wiilka ana dhalay ana abu ah haafad aad u jecelna waa markii ma waa qaadi jiray waan dhaga jiray saas waxa ma dhaawacyo kala ma lahayn wiilka wiil caafimaadkiisa hore taam u ahaa buu ahaa waan fiirinay wax meel ka gaaleen ma leh wax gaar ma gaar dib kala ma gaar ma lahayn horta dhaawac ma lahayn anagana ma ana daahin hada saak 3 saac meelaas u dhintay hada 5 saacna waan nawaalnay hada wiil aad u dabeec fiican buu ahaa 4 sano jiri dabeecadiis aad u wanaagsan wiil dabeec fiican buu ahaa aniga waxa isla wiilkan waa kii ilmaha ka soo bixi lahaa islaha marka waxaan isri amar ilaahay weey alxamdulillah waxa jecesha ilaahay ka qaada ilaahay lagu maxdina alxamdulillah ilmaha jooga 8 meelaas ilmaha waa jooga abad abshir Maxamed Abshabaari telefishinka BTN magaalada Muqdisho